Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada telefishinka cusub ee Kubadda TV iyo barnaamijka Bogagga Hore ee Ciyaaraha. Telefishinkan waxaad kula socon doontaan channelkeena YouTube-ka iyo weliba bogga aan Facebook-ka ku leenahay oo magacuna uu yahay Kubadda TV. Barnaamijkan Bogagga Hore ee Ciyaaraha aan ugu magac darnay waxaan idinkugu soo gudbinaynaa maalin kasta sheekooyinka ugu waaweyn ee ay qoraan bogagga ugu waaweyn ee dhinaca ciyaaraha ee qaaradda Yurub. Waxaana kaga hadli doonaa arrimaha kubadda cagta ee horyaalada Yurub iyo weliba ciyaartoyda ka ciyaara horyaaladaas. Aan ku horeyno bogga online-ka ee Sky Sports. Sheekadiisa maanta ugu weyn waxa uu ciwaan uga dhigay Bruno Fernandes waa isku darka Paul Scholes iyo Joan Sebastian Veron. Sidaasna waxaa yiri Ole Gunnar Solskjaer, tababaraha kooxda Manchester United. Wargeyska oo sheekadan sii qaada dhigaya ayaa waxa uu leeyahay tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer waxa uu aad uga helay ciyaartoyga ay kooxdiisu la soo saxiixatay heshiiska bishii January marka uu furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Bruno Fernandes oo ah laacib u dhashay wadanka Portugiiska. Wuxuuna sheegay in hadda kooxdiisa Manchester United ay la mid tahay sidii inay haysato Paul Scholes iyo Joan Sebastian Veron. Waxaana uu Ole Gunnar Solskjaer sheegay in Fernandes uu gacan weyn ka geystay guushii ay kooxda Manchester United axadii ka gaartay kooxda Watford ee horyaalka Ingiriiska. Fernandes waxa uu axadii suurtageliyay in goolkiisii ugu horreeyay uu u dhaliyo kooxda Manchester United. Wuxuuna sidoo kale goolkaasi ahaa gool kulaad loo dhigay markii khalad laga sameeyay isaga oo damacsanaa in gooshiisii ugu horreysay uu si qurux badan ku furo. Waxaana penaltigii uu u dhaliyay uu xaqiijiyay markii loo dhigay isaga laftigiisa. Sidoo kalena wuxuu gacan ka geystay labadii gool ee kale ee ay dhaliyeen Anthony Martial iyo Marcus Mason Greenwood. Wuxuuna wargeyskan sheegayaa in goolashaas saddexda ah ee Manchester United ay uga badisay kooxda Watford mid uu dhaliyay Fernandes, labada kalena uu isagu gacan ka geystay, sidaas awgeedna uu saddexda goolba ku lug lahaa. Haddaba arintaas ayuu ka hadlay ayuu leeyahay wargeysku Solskjaer. Wuxuuna aaminsan yahay in Fernandes hab ciyaareedkii uu soo bandhigay ciyaartii ugu dambeysay ay caddeyn u tahay in wax badan uu iska bedelay hanaanka ciyaareed ee kooxda, isla markaana ay Manchester United horey u sii tiigsan doonto guulaheeda ayna sii xoojin doonto tartanka ay ugu jirto in ay heer sare ka gaarto horyaalka wadanka Ingiriiska. Ciyaartoygan reer Portugiisna uu yahay hadda mid ka mid ah laacibiinta ugu muhiimsan ee kooxdaas. Intaas haddii aan uga gudubno sheekadan wargeyska Sky Sports, waxaan u sii gudbaynaa mid ka mid ah wargeysyada kale ee ugu waaweyn ee ka hadla arrimaha ciyaaraha oo la yiraahdo isagana Marca, kana soo baxa wadanka Spain. Marca wuxuu ka hadlayaa sheeko ku saabsan kooxda Real Madrid ee ka mid ah kooxaha ugu waaweyn horyaalka La Liga ee wadanka Spain. Wuxuu leeyahay maxay qaban doontaa tolow kooxda Real Madrid iyadoo hadda aan haysanin Hazard, isla markaana isbuucan ay sugayaan ciyaaro aad u waaweyn oo adag. Real Madrid wuxuu leeyahay wargeyska Marca waxa ay isbuucan la kulmi doontaa ugu yaraan 2 ciyaarood oo waaweyn, kuwaasi oo ay la yeelan doonto ama ugu hortagi doonto kooxaha Manchester City iyo Barcelona. Sidaan ognahay Manchester City waa koox ka tirsan horyaalka Ingiriiska, waxaana Real Madrid isbuucan soo socda ay isku arki doonaan ciyaar ka mid ah horyaalka Champions League ee kooxaha qaaradda Yurub, halka Barcelona iyo Real Madridna ay isku dal ka wada ciyaaraan oo ciyaartoodana ay tahay mid aad u xiiso badan oo lagu magacaabo El Clasico. Kooxdan Real Madrid wuxuu Marca leeyahay sheekadan isagoo sii faahfaahinaya kadib markii 1 gool iyo eber guuldaro ah ay ka qaadatay Sabtidii kooxda Levante oo Real Madrid laga badiyay. Waxaa Zinedine Zidane oo ah tababaraha kooxdaas hadda uu aad uga walaacsan yahay ciyaartoydiisa sida ay u muuqdaan imika, iyaga oo aadna uga walwalsan kana shakisan oo aan hubin sida uu noqon doono
qaab ciyaareedkooda maadaama aysan iminka haysanin mid ka mid ah ciyaartooydooda ugu muhiimsanaa Eden Hazard oo ciyaartaas ay la yeesheen kooxda Levante guuldaradana ka soo qaateen ku dhaawacmay. City iyo Barcelona waxa iyagu laftigooda hadda ay ku jiraan ayuu leeyahay wargeyska xiliyadoodii ugu fiicnaa oo ay kooxuhu ugu adag yihiin, fursadna ay u haystaan in koox walba oo ka hor imaada ay dardaraan. Marka Real Madrid waxa uu leeyahay wargeysku waxaa la soo gudboonaaday niyad jab weyn oo ku saabsan in laga reebay koobka la yiraahdo Copa del Rey ee wadankaasi Spain. sidoo kale kooxdaasi oo ay Real Sociedad 2 jeer ka badisay sidaasna uga hartay koobkaas looga reebay. hadda La Ligaha ayay sidoo kale 5 dhibcood lumiyeen labadii ciyaarood ee ugu dambeysay oo ay la yeesheen Celta Vigo iyo Levante. marka sheekadaas ayuu wargeysku maanta ka dhigtay sheekooyinkiisii ugu waaweynaa. wuxuuse leeyahay tusaale ahaan waxaa su-aal la gelinayaa in markii ugu dambeysay waxaa su-aal la gelinayaa xitaa in Karim Benzema uu lambarka 9aad ka ciyaari doono iyo in kale, iyada oo Real Madridna isbuucan ay wajihi doonto mid ka mid ah caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay. haddii aan ka gudubno marka sheekadaasi oo uu qoray, waxaan iminka u talaabeynaa wargeyska Metro ee dalka Ingiriiska. sheekada uu maanta ka qoray arrimaha horyaalka wadankaasi Ingiriiska, gaar ahaan dhinaca wararka kubadda cagta. wuxuu leeyahay wargeysku ciwaankan: Arsenal waxay sameyn doontaa wax kasta oo ay awoodo si ay uga dhaadhiciso laacibkooda Pierre-Emerick Aubameyang in uu sii joogo kooxda. waxaa sidaas qirtay Mikel Arteta, tababaraha kooxda Gunners ama Arsenal. Mikel Arteta wuxuu leeyahay wargeysku kooxdu waxay sameyn doontaa tallaabo kasta oo suurtagelin karta in lagu qanciyo Aubameyang in kooxda uu heshiis cusub u saxiixo uuna sii joogo Arsenal. laacibkan u dhashay aan iraahdo ee wadanka Gabon waxa uu hadda haystaa 18 bilood oo kaliya oo uu sii joogayo kooxda Arsenal marka la eego heshiiska uu u saxiixay kooxdan ku ciyaarta garoonka Emirates Stadium. wuxuu kooxda ku soo biiray sanadkii 2018 isaga oo ka yimid kooxda Dortmund, waxaana ay ku soo iibsatay Arsenal adduun lacageed oo gaaraya 57 milyan oo pound. laacibkan ka ciyaara khadka dhinaca hore amaba afka hore ee weerarka waxaa la siiyey horyaalkan xilli ciyaareedkan qaybtiisa hore waxaa loo magacaabay inuu kabtan kooxda u noqdo, waxaana hadda uu leeyahay uu yahay ciyaartooyga ugu goolasha badan ee kooxda Arsenal seasonkan u dhaliyay 17 gool, halka 17kaas gool 2 ka mid ahna uu dhaliyay kulankii Axadii shalay ay la yeesheen kooxda Everton. 3-2 ay Arsenal guusha ku raacday. waxaana uu hadda Arteta rajo ka qabaa ayuu leeyahay wargeyska in uu ninkan aan iraahdo ciyaartooygan Aubameyang ku sii sugnaado kooxda Arsenal. intaas ayaan uga gudbaynaa wargeyska Metro. waxaan u sii talaabeynaa Football Italia, dhinaca Serie A-da Talyaaniga ayaan iminka eegeynaa, iyada oo wargeyskan maanta uu ka hadlayo sheeko ku saabsan in ciyaaro badan oo ka mid ah kulamadii Serie A-da Talyaaniga dib loo dhigay, kuwo kalena hadda dib loo dhigayo. wargeysku wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte waxa uu xaqiijiyay in qiimeyn la sameyn doono, dibna loo dhigi doono dhammaan kulamada ciyaaraha Serie A-da ee dhici doona isbuuca soo socda, iyada oo markaas sababtana ay tahay dilaacista cudurka coronavirus. caabuqaas oo Talyaaniga hadda gaaray ayaa waxa uu sababay ayuu leeyahay wargeysku in kulamadii ciyaaraha uu saameeyo, dibna loo dhigo. fiditaanka cudurkan oo hadda aad ugu sii faafay qaybo ka mid ah waqooyiga wadanka Talyaaniga ayaa waxa uu sababay in garoomada qaar la xiro, dibna loo dhigo kulamo badan. waxaana hadda la filayaa in ra'iisul wasaaraha wadanka iyo xukuumaddiisa ay ku dhawaaqaan in ilaa 1 bisha Maarso aan la ciyaarin wax kulan ah, iyada oo laga hortagayo in xanuunkan uu ku sii faafo wadanka, maadaama garoomada ciyaaraha ay isugu yimaadaan kumanaan qof, isla markaana laga cabsi qabo intaasi ay sii sahasho in cudurkan uu dad badan ku sii faafo. waxaa hadda jiray ilaa 4 ciyaarood oo ka tirsan ayuu leeyahay wargeysku horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da
kuwaasi oo la baajiyey maalintii Axadda la filayay inay dhacaan. Kulamadaas waxaa ka mid ah Inter Milan oo la ciyaari lahayd Sampdoria, waa la baajiyey Axaddii. Sidoo kale Axaddii lama aysan ciyaarin sida la filayay Atlanta iyo kooxda Sassuolo oo iyagana ballansanaa. Sidoo kale Verona iyo Cagliari waa la baajiyey. Waxaa kale oo la baajiyey Axaddii ciyaar dhex mari lahayd labada kooxood ee Torino iyo Parma. Ra'iisul Wasaare Conte wuxuu uu ka hadlayay telefishinka RAI, wuxuuna sheegay in uu codsan doono in dhammaan kulamada la ciyaari doono isbuuca dambana dib loo sii dhigi doono. Intaas ayaan uga gudbaynaa dhinacii wargeyska Football Italia ka hadlayay arrimaha maanta ka jira ciyaaraha horyaalka waddanka Talyaaniga. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeyska ugu dambeeya dhinaca online-ka wax ku qora ee la yiraahdo goal.com, waxaana uu isaguna ka hadlayaa oo dib noogu celiyay Ingiriiska. Hase ahaatee sheekadan waxay ku saabsan tahay Champions League. Wuxuu leeyahay wargeysku ciwaankiisa Lampard oo ka ciyaaray kaalin muhiim ah in Chelsea ay si mucjiso ah sanadkii 2012 ku qaado horyaalka Champions League markii ay ku ciyaartay magaalada Munich. Hadda Lampard ma ka qaban karaa ayuu leeyahay wargeysku, oo ma ka xanaajin karaa mar kale kooxda Bayern Munich oo Chelsea ay isku aadan yihiin. Markan ciyaartooyga xilligaas ciyaarayay 2012 ee Frank Lampard hadda waa tababaraha kooxda Chelsea, waxaana isbuucan soo socda ay ku aadan yihiin kooxda ugu tunka weyn waddanka Jarmalka ee Bayern Munich. Waxaana uu leeyahay wargeysku talow muxuu qaban doonaa Frank Lampard si uu kooxdaas hadda wareegga 16aad uga reebo. Frank Lampard sheekadiisa ama taariikhdiisa ma ahan mid hareysa oo Chelsea waxa uu kala qayb qaatay in ay si mucjiso ah koobka Champions League ku qaado 2012 ayna markii ugu horeysay koobkaas gacanta ku dhigto taariikhda kooxdaas. Waxaa ciyaartooygan oo markaas ka ciyaarayay khadka dhexe uu mar walba sheegaa in 2012 finaalkii ay kooxda Bayern Munich ka qaadeen uu yahay mid saacadii ugu fiicneed ee abid waqtigiisii kubadda cagta uu ahaa, uuna koobkaasi xilligaas ku guuleystay. laakiin hadda waxa uu xitaa sidoo kale wuxuu ugu faanaa kooxaha Arsenal, Tottenham, Manchester City kulligood oo kamid ah kooxaha ugu waaweyn ee horyaalka Ingiriiska in iyagu aysan Champions League gacanta ku dhigin, balse kooxdiisa lagu magacaabay mar la yiri Champions of Europe oo ah kooxda horyaalka Europe qaaday. Marka wuxuu wargeysku sheekooyin badan ka qorayaa oo uu su'aalo badan iska weydiinayaa sida uu u wajihi doono Frank Lampard markan isagoo aan garoonka ku dhex jirin balse tababaro ah kooxda Bayern Munich, waana markii ugu horeysay ee ay iska hor imaadeen isaga iyo Bayern Munich. intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenii bogagga hore ee ciyaaraha oo aad ka daawanayseen telefishinka Kubadda TV. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdishakuur Casoowe, soo saaraha barnaamijkana waa Morash. inta aan barnaamijkan lamid ah berito ku kulmayno waxaan idinku dhaafeynaa amaan Allah.